gabadhii muslimadda ahayd oo isa sii bedelaysa inankii muslimku isa sii bedelaya dhaqamadii la bedelayo waxaasoo dhamme waxay la mid yihiin tuu nebigu leeyahay latatabicanna sunana man kaana qablakum waxaa raaci doontaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dhaqamadii kuwii idinka horreeyey taako iyo dhudhundhudhun baa u raaci doontaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xataa hadday galaan buu nebigu yidhi god masalugalayda sooma taqaaniin masagalayda ta yaryar baa dabka la yidhaahdaa ta waaweyn waral baa la yidhahdaa waddankeena degan god masalugalay hadday galaan buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam lattabactumuuhum waa ka dabagelaysaa mitaalkani waxa uu tilmaamayaa shayguu tilmaamayaa waa maxay haddaad si fiican ugu fiirsato godka masalugalay waa meel madow oo yaroo qurmuun soo maaha meel la gala miyayt meel wixii gala laga dabagala miyayt يعني wuxuu tilmaamayaa indhala'aan baad waxaa u qaadanaysaa waxaad qaadanaysaa adigoo aan soo marin maxay almisfaat alcaqliya caqligu waa shaandho afkaarta iyo aragtida iyo waxa lagu reebaya lagu shaandheeya muctaqadku waa shaandho waxa lagu sheegaya lagu shaandheeya wixii lagu sheegaba laba qaato wixii TV ka soo baxay iyo wixii jaacad lagu dhigay iyo wixii la sheego dhan lama cabo ee waa la iska safeeyaa marka la safeeyo maxaa soo baxaya wax anfaca iyo waxaan waxanficin waa la iska daadiyaadhay shaandhada waxa loo samaystay maxay markaad wax hufaysa maxaa wax loo hufaa waxa aad sileeday markaa ku anfici maayo inaad iskaga reebto sankoo la dalooshada ma bannaana waayo wejiga wuxuu diiday nebigu in lagu ciyaaro xataa xoolahan laga sunti karin dadkuna inuu dalooshado iska daa marka waa dhaqamada hinduuska iyo hindida bariga ee dabcaabudka ah soomaaliduna wixii arkaanba waxay isaga qaataan inuu yahay ilbaxnimo walow gaalnimoba ha ahaadee saa daraaddeed la daloolin maayo waa inay dumarku ka fogaadaan iska ilaaliyaan إلهي سبحانه وتعالى نبينا محمد وحاو كسفيي أخلاق وناك هلك أسر ريسين كقاري وإنك لعلى خلق عظيم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وحشاقيدتك مؤمنين تاهي إنه أكل إيمان بدنيهين سيأكل أخلاق ونكسيهين أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا مؤمنين توحى حق إيمانك ودما يستيران كودا وأخلاق يدق ونكسن حين كجرنا شعبان أيام كدبنا إن شاء الله تعالى رمضان بين قارنا